Shacabka magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa cambaareeyay go'aanka maxkamadda sare dalkaasi ku siisay dadka isku jinsiga ah inay isu galmoodaan. Hogaamiyayaasha diinta ee dalkaasi ayaa ku booriyay Madaxweyne William Ruto inuu soo farageliyo arrintaasi isla mar ahaantaasina meesha laga saaro. Dalka Kenya ayay hore mamnuuc arrintani uga ahayd iyadoo qofkii lagu helo falkaasina lagu xukumayay 14 sano xadhig ah. Si kastaba ha noqotee, shacabka dalka Kenya ayaa dalbanaya inuu madaxweynaha dalkaasi qaato mid ka mid ah go'aamada horyaalla oo ay ugu sheegeen inuu qaato mid la mid ah go'aankii qaatay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, isla mar ahaantaasina kaasi oo dhigaya in la toogto ama la dilo qofka arrintaasi lagu helo ee ku kaca. Xildhibaanada dalka Kenya ayaa sheegay inaanay marnaba arrintaasi wadankooda laga soo dhoweynin, isla mar ahaantaasina ay laalayaan oo ay sameynayaan wax kasta oo suurtagalnimo ka dhigaya inuu xeerkaasi baaba'o meeshana ka baxo sharcigaasi. Waxaanay sheegeen in cadaadisku kaga imanayo dalal shisheeye ee maxkamaddu culays la saaray awgeed arrimahaasi u dhaqangelinayso. Sidoo kale, shacabka ayaa ku eedeynaya dadka ka imanaya dalalka kale inay arrintaasi keenayaan dalka Kenya. Yaxye Muuse Ibrahim, Nairobi.